السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضيي وعشر كين اللحاد وقيبينتا عاو حنكسو قادان دونا صدح قد ولو قيبيني هل قد تصالحان أو كله لح بقول يسديت ومن لو قيبي صدح سيدابان صدح قف أو قيبين كرناه لح بقول يسديت وان شلين صومالي marka hore waxaan u qori karnaa qaabkan Soomaan qaabkan waa soo sheegnay casharadii hore 618 oo loo qaybiyay 3 saan badii karnaa macna qaabka loo qori karo way u qaybinta sidoo kale waxaan u qori karnaa saan oo kale 618 oo loo qaybiyay 3 yani u qaybintu saan oo kale يسدان أو شقين كده لكن سيدا وقف عن وحويه إلى الروت كجلسيد بفعن شيء على مدة سهل له يقنا روت بلو يقنا روت كأنه جلسيد بأدو في عن هاي مرة شقين حساب صوته ومك أو قيبين سيد تروين كمثلا كورس سارين سيد وفرص بقولي كده مرة أد بيوفي عن هاي قابل وشقي سيد سيدا وحن صار شقني هدي هالقد وبنانك يالله إلى مرة هالقد أسوق قبل نسيد أنا هذا صدق جد بجوده كتير سماهن بنا كان هل جد صدق حبات الله سأقدر تدو حد اسكفيرين نامر كوري جد كواد كو جوده كتيره يكاس يكن دبدا اسكفيريننا واحد هنا لح موقف سنتا صدق معنا صدق قف لح كون أو شيء الصومالي أما لح كون أو دولار انتهى بصدق قف قادنا يا ميد والبا مع إن ميد والبا انتهى شيء الصومالي وقادنا يا تحسبن كفكرين سويديننا marka waa fahmi karnaa mid walba inuu u qaybsami karo fahmi karnaa Soomaan sababta waa 6,000 iyo 3 qof yaa tiro badan tirada gudaha ku jira tiro badan waa 6,000 oo shilin Soomaali banaankana dadka loo qaybinayo macna kuwan hoose waa qaybsaday waa la qaybsadayaashii wixii la qaybsanay waa lacagtii buugaagtii qalimaantii dollarkii buug macna boorsooy wuxuu doon ha noqdo kuraas miisas macna wixii doon ha noqdaan laakiin waa wixii la qaybsanayay dadku dhaxal hadu dhaxalka kala xoolo ma noqon kara 618 neef oo ari ah noqon kara geel oo noqon kara wuxuu doon noqon kara marka dadka loo qaybinayna waa 3 weeye marka sideeba u qaybin karnaa taasa muhiimadu tahay marka waxaan idhi uu qaybsantaa Soomahan haye marka uu qaybsanta waxa raadinaa ardaygu macna waxa la rabaa inuu raadiyo tiro markii 3 lagu dhufto keenaysa muxuu ahaa 6 keenaysa taasa u baahanaa tiradaas maxay noqonaysaa banari waxay noqonaysaa aan tirino marka 3 oo lagu dhuftay hal waa intee weeye waa 3 haye 3 oo lagu dhuftayna 2 waa intee weeye 3 oo laba lagu dhuftay ardaygu uu fahmi kara wuxuu dhahayaa waxa weeye 3 2 lagu dhuftay waa 6 marka maxaa u saarnaa halkan 2 aan saarnaa sababta ayada 6 keenaysa 2 aan saarnaa haye 3 2 lagu dhuftay intee weeye waa 6 weeye 6 ayada hoos dhigaysaa 6 waa qoraysaa hoos baa ka xariiqaysaa hoos marka ka xariiqsan maxaa sameeyay calaamada ka jartaa muujinaysaa haye maxaa dhaysaa 6 oo 6 laga jaray intee weeye 6 laga jaray waa ibir marka saa maraysid waxa sameeyay lambarka ku xiga soo dejinaysaa hal marka soo dejiso waxa dhaysaa 3 qof ma u qaybsami karaa ma taqaana hal buug ama hal qalin ama hal kun oo shilin Soomaali ah ma u qaybsami karaa may waa dhigi karaa sababta 3 qof tiro badan صدرت واحد هسا لمبرك كحت سا أسوس دجسيد سدد بكحت سمان هل سدد ده سا أسوس دجسيد هوس أوكينتيد واحد صار سا كور صار سا إبر بصار سا إبر بصار سا مرك إبر سدد محل سدد شنسا لمبرك كحيو سدد محصل نقدين ترى محصل نقدين سدد توم محصل نقدين سدد توم سماهن واحد هسا مركا واحد إيش أرضيو ترى صدق مرك اللي قلنا فتو سدد توم كينسه ardaygu wuxuu dhahay 3 laba lagu dhuftay 6 amirna Soomaan 3 lagu dhuftay waa 9 3 afar lagu dhuftay waa 12 3 lagu dhuftay mataqaana 5 waa 15 3 6 lagu dhuftay waa 18 keenaysa ha marka ardaygu inuu xidisan yahay jadwalka isku dhufshada aad u muhiim tahay marka xalasa 6 u saaraysa xalasa 3 6 lagu dhuftay weeye 18 waa isku hoos qoraysa haddana maxaa sameeyay waa kala jaraysa ardayo waa kala jaraysa 8 maxaa dhaysa 8 laga jarantay weeye waa eber hal laga jarana waa eber waa dhahaysa jawaabta sidaas ku soo baxaysa arday walba intuu qaadanayana ama 3 qof mid walba wuxuu qaadanaya 206 buu qaadanaya
sida u hubisid macnaha dhahay jawaabtu ma sax ba ama khalad ba ardaygu macnaha waxa ka khaldami kara waa bani aadan waxa dhici kara tirada halkan saaray oo la yiri 3 lagu dhufto tiro lagu dhufto 6 keenaysa inuu halkan 3 ka dhigo ama hal ka dhigo ama tiro kale ka dhiga kan uu hadhow khalad noqoto marka saa u hubisid ardaygu waxa sameynaysaa tirada kor saaran ba soo qaadanaysaa waxaanaysaa 206 way Soomaan tirada kor saaran 206 maxaa ku dhufanaysaa 3 ba ku dhufanaysaa lagu dhufto ba dhahaysaa 3 haye 3 6 lagu dhufto intee weeye waa 18 qoranaysa maxaa wataa hal ba wataa 3 eber lagu dhufto waa eber hay halkii soo qoro hay 3 laba lagu dhuftay waa 6 maxaa ku soo baxay 618 ya halkan maxaa ku taalay 618 ba ku taalay waa sax jawaabta sax bay ku noqoto tusaaleena labaad waxa weeye 242 loo qeybiyo 2 marka hore 2 iyo 2 isku qaybsamaan ha haye waxa ay sheegtaan tiro markii 2 lagu dhufto 2 keenaysa waxa noqonaysa ardaygu garanaya waa hal 2 hal lagu dhufto intee weeye ardayo waa 2 waa isku hoos qoraysa hadhown waa kala jaraysaa 2 laga jaray waa eber marka maxay soo dejinaysaa tirada ku xigto ah 4 ba soo dejinaysaa hay arday waxa ay sheegtaa tiro markii 2 lagu dhufto 2 oo lagu dhuftay tiro maqan oo 4 keenaysa garanaysa ha waa 2 lagu dhuftay bravo marka labadaas saare 2 lagu dhuftay intee weeye waa 4 hay maxaa sanaysa marka waa kala jarta calaamada ka jira 11 4 laga shantee weeye waa eber marka maxay soo dejinaysaa tirada ku sii xigto ah 2 labadan ma soo dejinaysaa macnaha 2 soo dejinaysaa hay waxay sheegtaa ardaygu tiro markii 2 lagu dhufto macnaha waxay ka dhigan tahay 2 oo lagu dhuftay tiro maqan oo la keenaysa 2 ii sheeg ardaygu wuu xidisan yahay jadwalku wuxuu dhayaa waa hal sababta tan bir la mid tahay Soomaan hal bi noqonaysa 2 hal lagu dhuftay waa 2 kala jar waa eber haddaad rabtid inaad hubisinna de labadan waxa ku dhufanaysaa intaan 121 tabta sameynaysaa agan 2 weeye waxa ku dhuftaa 2 wuxuu noqonayaa 2 hal lagu dhuftay waa 2 2 lagu dhuftay waa 4 2 hal lagu dhuftay waa 2 maxay la noqotay 242 halkan waxa nagu jiro gudahana 242 nagu jiro jawaabtu waxay noqonaysaa sax bay noqonaysaa halkan waxa nagu qoran 328 oo loo qaybay 8 haye sidee baa soo qaybin karnaa haye marka waxaan fiirinaa banaanka hal god baa yaala gudahana 3 god baa taala hal god baa u soo qaadanaa 3 baa u soo qaadana laakiin waxa ogaanay in 8 qof aysan u qaybsami karin 3 mataqaana tufaax ah ama 3 mataqaana 3 qalin dhih uma qaybsami karo sababta 3 qalin lama jijibinayo Soomaan marka waxa dhahaynaa tirada ku xigta soo qaadanaa markan eber u saari meesid eberku waxa u saaraysaa markii tirada halka markay marayso dhexda marayso tirada waa bilow Soomaan bilowgu ma saaris eber marka hore halka tira ka horeysay Soomaan 2 ka horeysay oo aan 3 2 lagu dhufto 6 waan waa kala jarnay tirada labaad baheed halku ha markaas ku eber ba u saartay hadii leekan weydo like hadeer way leekan weydo laakiin waa bilow waxa kormas maana saareen sadarteed tirada ku xigta raacin maxay soo noqonayaan 32 isku noqonaya hay waxa ay sheegtay ardayow 8 oo tiro lagu dhufto 32 keenaysa ardayga xidisan wuxuu dhahayaa waa 4 ay 4 buu saaraya 8 4 lagu dhufto intee weeye 32 ay kala jar 2 laga jar intee weeye waa eber 3 laga jarayna waa eber marka inta ka shaqeysid maxaa noogu xigay 8 baa noogu xigtaa 8 ba soo dejinaysa marka hay arday waxay sheegtaa tiro markii 8 lagu dhufto 8 tiro markii 8 lagu dhufto keenaysa 8 arday xidisan waa hal u dhahaya way xidisan yahay 8 hal lagu dhufto intee weeye waa 8 ay marka kala jar 8 laga jar intee weeye waa eber weeye saas aad ku saari karaa 105 loo qaybiyo 5 baa noogu xigtaa waxaan dhahaynaa tirada banaanka taala waa hal god gudahana 3 god baa ku jira laakiin hal iyo 5 isku qaybsamaan ma isku qaybsadaan sida darteed hal iyo 5 qof hadii waxa loo qaybinayaa ma taqaan hal qalin de waxa u qaybsami karo ma noqonayo sida darteed tirada ku xigta raacina ah 10 haye waxay sheegtaa 10 iyo 5 isku qaybsamaan ha isku qaybsamaan sababta 10 baa tiro badan 5 qof hadii loo 10 hal loo qaybiyo 10 qalin de mid walba intee ku soo aadamisa sheegana waxa ku soo aadamayna korba anaga sheegana mataqana waa tirada aan kor saareyno waxaan dhahaynaa 5 oo lagu dhuftay tiro maqan oo keenaysa 10 ma garanaysa ardaygu wuxuu dhahayaa 5 lagu dhuftay hal waa 5 5 laba lagu dhuftayna waa 10 ka waa sax laba saaraya marka ina ayada 10 keenaysa 5 laba lagu dhuftay weeye waa 10 marka maxaa sameeynaa hadana waa kala jaraya haye marka saa u kala jaro
حدا يا إبر لقى شرا وإبر هل لقى شرنا وإبر بس واسكو دمات maxaa soo dejinaya tirada ku xigto ah 5 ba soo dejinaya waxa dhahay ardayo waxa ay sheegtaa tira markii 5 lagu dhufto tira 5 markii lagu dhufto hal keenis 5 wuxuu dhahay ardaygu wuu garanaya waa hal buu dhahay hal 5 hal lagu dhuftay intee weeye waa 5 hadana waa kala jaraysaa 5 laga jaray waa ibir hadaa rabtid inaad hubisid macnaha marka hubinaysa waxa la rabaa tirada ku soo baxaysa inay gudaha tan ku jirta ay isleekaadaan waxay noqonaysaa 21 oo lagu dhuftay 5 ay ka shaqeeyay marka maxay noqon hubi macna hubintii way hubin way shan lagu dhuftay hal waa intee weeye waa 5 shan laba lagu dhuftayna waa 10 maxaa noo soo baxay 105 ma noo soo baxay 105 gudahana 105 baa lagu jiray marka jawaabtu saxda waxay noqotay ma taqaanaa 105 soo baxda marka sidaas ku saari kadhaa insha Allah taala 10keena ku xiga waxaan ku soo qaadan doonaa 4 god oo loo qiimeeyo hal god kaas xataa waxaan ku soo dari doonaa ayadoo hara u yeelanayo macna hal oo soo hada eer ba soo hareysma tirooyinka eer ba soo baxayaan ayadoo tiro hara soo hari doona insha Allah taala ba ku xijin doonaa ardayga waxa intaas u dibdegayay ardayga ma taqaanaa in marka hore qaabkaas fiicanta tiro isku go'an iskeenaysa inaan ma taqaanaa keeno muhiimada taas bay ahayd in soo arday ula qabsado insha Allah taala 10keena labaad baan ku soo qaadan doonaa 4 god oo loo qaybinayo macna 4 god oo loo qaybinayo mataqaana hal god iyo sidoo kale tira haraa yeelanaysa ama laba soo harayso 3 soo harayso kale baan ku soo qaadan doonaa insha Allah taala idinka waxa sameeysan baan ku talinayaa inta badan inaad tusaalooyinka badan ku celisaan tusaale badan ku celisid wuxuu ka anfacayaa in aad mataqaana aad xisaabta si fiican u baratid mar walba tusaale badan samee xisaabooyin ama xisaabooyin badan oo matan u qaybina xalli saas ku celi hadhow marka hore ku fudaanaysa markaas dambeeya ay ku sii fudaanaysa marka insha Allah taala asaasan ku rajeynaya